waxaanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta daasoon oo aanu ku soo qaadanayno isbedeladii u dambeeyey ee xaaladda dalka Itoobiya. Xukuumadda oo ka codsatay ciidamadii hore ee Itoobiya inay ku soo biiraan safafka askarta si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro jabhadda Tigreega, iyo golaha amniga oo ku fashilmay inuu soo saaro go'aankii ay ugu talagaleen xaaladda dalka Itoobiya. dabeetana gebagabadii kulankooda soo gudbiyey soo jeedimo la xidhiidha xaaladda dalka Itoobiya oo ay ugu baaqayaan dhinacyada dagaalamaya. Ku soo dhowaada barnaamijka. Jimcihii Noofembar 5, 2021 ciidamada Itoobiya waxaa laga codsaday askartoodii hore iyo dagaalyahanadii shaqada ka fadhiistay inay dib ugu soo laabtaan safafka ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ayna ka qayb qaataan howlgallada militari ee lagaga hortegayo horu socodka ciidamada Tigreega, xilli dowladda Mareykanka iyo boqortooyada Sacuudigu ay ugu baaqeen muwaadiniintooda ku sugan Itoobiya inay uga baxaan sida ugu dhaqsaha badan. wargeyska Addis Standard ee ka soo baxa dalka Itoobiya ayaa mareegtiisa warbaahineed soo xiganaysay ciidamada Itoobiya waxay sheegtay in laga dalbaday askartii hore ee haatan weli jir ahaan wanaagsan inay isdiiwaan geliyaan 10 ilaa 24 Noofembar, taasoo ku soo beegantay iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda iyo iska horimaadada u dhexeeya ciidamada federaalka iyo dhaqdhaqaaqyada fallaagada oo ay hormuud u yihiin ciidamada Jabhadda Xoreynta Tigray. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii dowladda Itoobiya iyo maamulka deegaanku ay ka codsadeen dadka rayidka ah ee ku dhaqan caasimaddu inay diiwaan geliyaan hubkooda oo ay u diyaargaroobaan sidii ay deegaanadooda u difaaci lahaayeen. sidaynu barnaamijyadeennii hore ku soo sheegnay, jimcihii 9 jabhadood oo ka horjeeda dowladda Itoobiya ayaa samaystay isbahaysi cusub oo ay ugu magac dareen Jabhadda Midaysan ee Federaalka iyo Isbahaysiga Itoobiya, kaasoo ay ku hoos jiraan calankooda Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray oo muddo sanada dagaal kula jirtay xukuumadda Abiy Ahmed, dagaalkaasoo ay ku dhinteen dad badani, qaar kalena ay ku barakaceen. ka hor dhawaaqa isbahaysiga cusub, Jabhadda Oromada ee OLA waxay horeba iyadu ugu biirtay ciidamada Tigreega. Labada kooxood waxay xaqiijiyeen inay ku sugan yihiin magaalada Kimisi ee gobolka Amxaarada. shir jaraa'id oo magaalada Washington ay ku qabteen wakiilo ka kala socday dhinacyo badan oo Itoobiya ka tirsan waxay ku shaaciyeen isbahaysiga cusub ee militari oo ay ku jiraan Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray iyo Jabhadda Oromo Liberation Army, kuwaasoo markii horeba ahaa jabhado isbahaysi ah muddo bil ahna dagaal kula jiray ciidamada dowladda ee gobolka Tigray iyo gobolka Amxaarada ee waqooyiga dalka. Isbahaysiga waxaa kaloo ka mid ah jabhadaha kacaanka canfarta ee midnimada dimuqraadiga, dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga AGA, dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka Benishanguul, ciidanka xoreynta shacabka Gambela, xisbiga dimuqraadiga ee Kementi, Jabhadda Wadaniga Xoreynta Sidaama iyo kooxda iska caabinta dowlad deegaanka Soomaalida. taa beddelkeeda dowladda Itoobiya waxay ku eedaysay ciidamada Tigreegu inay buunbuuninayaan guulaha ay ka gaareen dhulka, iyadoo Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray ay xaqiijisay oo ay sheegatay salaasadii inay ciidamadeedu ku wajahan yihiin magaalada Meeli, taasoo u sahlaysa bay yidhaahdeen inay gooyaan jidka weyn ee isku xidha dowladda Jabuuti iyo caasimadda Itoobiya. Jimcihii afhayeenka xukuumadda Legisa Tola waxa uu beeniyey sheegashada, waxaana uu sheegay in dagaalku ka dhacay meel 80 kiiloomitir u jirta halka uu jidkaasi maro. golaha ammaanka ayaa ku guuldaraystay inay war buuxa ka soo saaraan qalalaasaha Itoobiya kadib markii ay dowladda Ruushka is hortaagtay qaraarkii qabyada ah ee golaha amnigu doonayay inay ku waajahaan xaaladda dalka Itoobiya. diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in golaha ammaanku uu ku guuldaraystay inuu soo saaro bayaan ku saabsanaa qalalaasaha hadda ka taagan Itoobiya kadib markii ay Ruushka is hortaageen. Ilawareedyada oo diiday in magacooda la shaaciyo waxay sheegeen in wafdiga Ruushku ay is hortaag ku sameeyeen qoraal qabyo ah oo ka soo bixi lahaa golaha ammaanka kuna aadanaa xiisadda Itoobiya, waxaana ay ilahaasi tilmaameen in Moscow ay isticmaashay xaqa ay u leedahay inay jebiso qoraalka qabyada ah oo ay soo diyaarisay dowladda Ireland.
kadibna dhammaadkii kulankaasi golaha ammaanku waxa uu isku raacay baaqii ka duwan oo lagaga codsaday dhinacyada Itoobiya isku haya inay xabadda joojiyaan oo ay ku soo noqdaan wada hadallada. golaha ammaanku waxay soo dhaweeyeen istaraatiijiyadda iyo dadaalka loogu jiro in la gaadho xabad joojin iyo in si degdeg oo nabadeed lagu xalliyo colaadda. xubnaha golaha ammaankuna waxay si adag ugu booriyeen wada shaqaynta iyo taageerada wakiilka sare ee midowda Afrika ee dalkaasi. gabagabadii bayaanku waxa uu xubnaha golaha ammaanka ay caddeeyeen inay si adag uga go'an tahay madax bannaanida siyaasadeed iyo taluleed iyo weliba midnimada Itoobiya. saxaafadeedka ayaa ah mid lagu soo saaray halkudheg ay ku midaysan yihiin dowladaha xubnaha ka, waxaana loo arkaa mid ka awood yar war murtiyeedkii la doonaya in laga soo saaro.